بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كتاب كان وحل إلى هذا 40 حديثا في التربية والمنهج وأفرتن حديث وقصابسا تربية بربارينتا هي طريقة الصحراء الروح إنه قال له باهي أحاديث تنوحة أرورية وفرتن كحديث كتاب كيسوق كاني الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان أيها السوق كاني وحنو كذا أيها تقديم السميي لكن إنك يسوق كاني فرتن كحديث وانكل إلى عبد العزيز بن محمد السدحان فرتن كحديث وحالي نسيي إن أنا أفر بريكور لمين مالكي وحن قادني نتوب الحديث إن شاء الله تعالى وحكم الله بي حديثك وبخارينا بالله بي كتاب كيس الحديث الأول حديث كوهري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عمر بن الخطاب وحال ورنيا قال إنه يري قال وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحي إنما الأعمال عمليالك بالنيات نيوينك كحرين عملك ووحي للسمايو أكشنك أما عربك هالسمايو أما حبنها هالسمايين وحي للسمايو نبع عمل لنا marka amal oo dhan waxa uu ku xidhan yahay binniyaati niyooyinka waxa laga wadaa niyada waxa la dhahaa waa qalbiga go'aankiisa qalbiga markuu wax rabo ama rabitaanka qalbiga ayaa niyo la yiraahdaa markaad rabto inaad wax ku hadasho ama wax samayso inta adan sameeynin oo ama carabku ku hadlin ama ina xubnuhu sameeynin qalbiga markuu hore go'aansada qalbigu markuu go'aansada kadib waxa yimaada actionka ama ficilka sidaas daraadeed amal kasta wuxuu ku xidhan yahay niyada waxa laga wadaa niyada aad ku sameynayso amalka haddii ilaahay dartii tahayna amalkaasi وفيعني ولا أقبله هذه النية عملك أتكو سمينيسو أي تهي نيحن هلو عركو هلو مقلو استستس هذه أدن كلا هنا عمل كاسي وحن راعي النية أتكو سميس وأساس يعني عمل وحكو حرية هاي النية يعني قوانك قلبك أما دونيتانك قلبك meesha uu jiro ayuu amalkuna raacaya inama al-a'malu marka amaliyalki binniyati niyooyinkum bay ku xidhan yihiin wixii ilaahay dartii aad ula qasadana waa laga aqbali wixii aad cid kale ula qasadana laga yeeli maayo wa inama likulli imri'in ruux kastana waxa uu sugnaaday ma nawa wuxuu niyoodo ruuxu wuxuu leeyahay wuxuu niyoodo oo kaliya waxa laga wadaa
waxaad niyeysanin bamalihi hadii ficil aad samayso ama hadasho ama aad fal samayso oo aad niyad balla imaaninba malihid wixii aad niyo ula timaado umad leedahay bimaana adigoo hurda haddaad hadasho oo aad subxaanallahi dhahdo niyadba ma jirtaba ama adoo ishalmaansan baad iska samaysay niyo ma jirto sooma wixii aad niyo u samaynin malihid laakiin wixii aad niyo ku samayso baad leedahay tii hore maxay ahayd amalka niyada lagu sameeyo buu xukunkeeda qaadanaya oo ku xidhan yahay sooma tan maxay tahay amalka waxaad leedahay wixii aad niyo ku samayso wixii aad niyo ula imaanin malihid waxba kama helaysid macna wa inma likulli imri'in ruux kasta waxa uu u sugnaaday oo uu leeyahay ma nawa wuxuu niyoodo wuxuu niyoonin male waxba ka heli maayo macna طيب intaas waa qaacidadii markii lagu yiraahdo amal niyo uu ku xidhan yahay xukunka niyada uu qaadanaya waxaad niyootoon baadna leedahay soo dhimaysid misaal ii samee tusaale sooma sambal waay sooma tusaalihi way marka waxa lagu tusaaleyn karaa salaad oo kale sooma ruuxii salaada ilaahay dartii u tukada muxuu leeyahay ajir buu leeyahay sooma ruuxii salaada u tukada cid kale oon Allah ahayna ajir male sooma soonkii baa lagu misaalin karaa xajka lagu misaalin karaa sadaqada lagu misaalin karaa ninkii sadaqada ilaahay dartii ula baxa iyo ninka sadaqada u bixinay calashaani madaxweynihii baa joogay ha ku arko ama wasiir baa meesha joogay ha ku arko sooma kala duwan marka misaal kasta lagu sameyn karaa qaacidadu wax weeyaan asaasku wax weeyaan basic wax weeyaan waa inma al-a'malu bin-niyyat wa inma likulli imrin ma nawa misaalkuna muxuu yahay amal kasta lagu misaalin karaa laakiin xadiisku muxuu ku misaaliyay hijradii uu ku misaaliyay hijradu maxay tahay waa inaad dhulka gaalada oo diintaada aadan xor u ahayn aad isaga cararto oo meel diintaada aad xor u tahay aad aado meel diintaada aadan ku gudan karin ku cibaadeysan karin oo lagu dhibayo isaga tag ama diintaada khatar ku soo gaadhayso meel kale to diintaada uga fiican aad hijra la yiraahdaa marka waa amal kamid ah amaasha fiican tiibu nabigu ku misaalay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri faman kanat ruuhi ayahat hijratuhu hijradis tagitaanka uu dhulka gaalada ka tagayo dhul islaam uu aaday ruuxi ay ahaatay hijradaasi ila Allah alla xaq alla darti wa rasuulihi iyo rasuulka xaqiisa rasuulkii oo Madiina tagay ama dhulkii muslimku aaday alla darti buu u tagay ruuxi hijradiisu sidaas tahay oo niyada ku hijrooday waa fa hijratuhu hijradiisu ila Allah xaq alla ahaatay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa halga wada hijradiisu meel fiican bay dhacday ilaahay baana abaal gud ka siinaya waa sooma ka waa kii hore oo ah ruuxii u hijrooday ilaahay darti niyadiisu ay tahay ilaahay ajra kaasi طيب kaas hijradiisu ilaahay xaqiisay ahaatay ilaahay baa ajirkiisu xaqa allu yaala rasuulka jidkiisina waa raacay waman kanat ruuxi ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ila dunya addunya darteed addunyadaasoo yusiibuha uu helayo addunya aad heshid buu u hijrooday aw imra'atin ama haweenay darteed oo yankixuha uu guursanayo darteed buu u hijrooday fa hijratuhu hijradiisu kaas ila ma haajara ilayhi wuxuu u hijrooday bay ahaatay ninba dhulkan ka tagay ama dhul buu ka tagay meel kalu aaday wuxuu u aaday adduunyu raadinaya xoolo raba meeshaas ay xoolo ka galeen kursi iyo jagu raadinaya magac buu raadinaya ama ma ahe
safarkan uu wadanka gaala ka tagay dhul islaam aaday haweenay buu raadsanay yani islaan meelaha kaga soo carartay daba socda mise mid uu jeclaa meesha ka soo gashay buu raadinaya ilaahay dartii uu soo tagin Soomaa ama adduun iyo xoolo raadinaya ama guur buu raadinaya oo dumar raadis waa wakadalika cagsiga aweenta hijrootay oo nin raadsanis ma ilaahay dartii ma Soomaa markaas hijradiisu muxuu ka helayaa ila ma haajira ilay wuxuu hijrooday inuu leeyahay oo maxay ah muxuu hijrooday kii haweenay uu hijroodayna haweenaydii haduu helo haduu waayana way Soomaa inta waxaan ahayn male kii adduunyada darteed u hijroodayna haduu xoolihii helay inta waxaan ahayn male haduu waayana laba khasaaro dhay Soomaa laba khasaaro wixii uu socdayna waa ilaahay agtiisana waxba kuma leh marka waa miisaal waa Soomaa miisaalku waxa weeyaan hijrada lagu miisaaliyay faman kaanat ruuxay ahaatay hijratu hijradiisu tagitaanka uu dhulka gaalada ka tago dhul islaam aaday hijradaasi ruuxii ay ahaatay ila allah alle xaqi ama alle darti wa rasuuli rasuulka xaqiis fa hijratu ka hijradiisu iyo thawaabkii ajirku ka helayo ila allah xaq alle ahaatay wa rasuulihi rasuulka xaqiis waman kaanat ruuxay ahaatay hijratu hijradiisu ila dunya darteed oo yusiibuha uu helayo adduunyo uu raadinayo أو امرأة أما هوين يدرتها ينكحها أو قرسنيه فهجرته كهجرديسو إلى ما هاجر إليه وحو هجره ديوه ومحيئة ويفربضن تهي صوما ويفربضن تهي كي الدنيا حوله هجره دي حوله كي قور يا هوين هجره دي يا هوينت صوما كي هجره دي محوها هاي كرسي يتشغل هذين وحيس إلى ما هاجر إليه وحو يجرو ديوان حديث كاسي مركب حو فايدين يا حديث كاسي وحديث وين أساس درادي بخاري كتاب كيس أقول بالله وحال السمين أيو ابن آدم كالسمين أما قبل قلبي وكرعة أما حبنها السمين أما قلبي السمين صوبة أساس درادي لوضو كيبا أساسا يا قلبي أساس أساسه قلبك أساس دراديد وإن قلبك مركه الصحضه سي عمل كاسي أو الصمين يسو وعمل صحسن النقط سيدا سمعنا طيب حديث كلابات الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو يري إن المقسطين كو عدالة السماية عند الله إله أكتيسة على منابر من بركر كوضي هذا ومن نور النور من بر النور أي كرساري عن يمين الرحمن الله نحريس تبدأ مدكتيس وكلتا يديه الله الذي سقع عمودنا مد والباء يمين ومدك وكلتا يديه لودي سقعمود متكستانا يمين ومدك الذين كواسو وكوي عدالة مقسطين تعالى الله الذين كواسو يعدلون عدالة سمية في حكمهم حكم كودي عدالة سمية مركي وحكوميان قرص سوريان قرص قاضيان عدالة بسمية وأهليهم أهل كودنا عدالة سمية أهل كوديا واي يعني reerahooda xaasaskooda caruurtooda guriyahooda cadaalad u sameey iyo wama wullu iyo wax kasto madax looga dhigo wama wullu wax kasto oo madax looga dhigo wixii dooni hano xadiidkan Abdullah ibn Amr ibn Aas isaguna wuxuu amaanayaa dadka cadaalada sameeyo cadaalada sameeyo oo aan eexanin طيب dadkaas wuxuu ku sheegay innal muqsitina kuwa cadaalada sameeya inda allah ilaahi aktiisa ala manabira min barakorkooday saaray alla aktiisay joogan oo ilaahi aktiisa la soo dhaweeyay macna muqarrabiin waa dad la soo dhaweeyay oo ilaahi aktiisa la soo dhaweeyay طيب alla aktiisa ha joogeene hadana ala manabira min barakorkooday saaray oo min nuuri nuura منبر كزوم تقنا
يا منبر معلنا وكاس قداشي نكمل مساجد صوما منبر كمساجد سمعنا كاسا منبر مركب منبر أرض سرية وهذا نور صوما دلالة يفتيمي ما ميت كان الواحد اللي قسمه ما قوة دلالة نور كسمه يسن بيساري إلهي أكتي سنة ويتشوغا طيب عن يمين الرحمن الله نحريص بدل ميدكتيس يا الله ميدكتيس أي تشوغا مركزا وحا ماشا هذنا العدي سي آذان ugu qaadanin oo ilaahay bidix miyuu leeyahay ee markii la yiraahdo dhanka midig bay jiraan Soomaa maxaad u qaadanaa ku soo baxaya waxaad isleedahay oo ilaahay kaalima bidix buu leeyahay tiiba marka laga daba tago waxa la yiri wakilta yadayhi labadiisa gacmood mid kastana yamiinun wa midig soo makhluuqaadka inagoo kale labadeena gacmood midigta iyo bidixdu soo ma kala xoog badna يا تحوق بدن يا مين تحوق بدن بيحدنا والضعيف تبردرت هذا بيحد كفر لي هذا بيد كفر لك على حوق بدن صوما اللهم انا تقرنت هاي موي ضد قرنت مركا بيحد حوق مركا الهي لبديسا قعمود لو قعمود بولي لكن لبديسا قعمود بو ميدك صوما لو قعمود او كلا تبردرن ما ومن حوق بدن ده من تبردرن لبديسا labadiisa gacmood waa midig tayib dadka cadaalada sameeyay ee ilaahay agtiisa minbarada korkooda saar minbarada nuurka ka sameeysan dhanka midig Allah tabaaraka wa taala kuwaas hadana la sii tilmaamay hay kuwa yihiin kuwaas waxa la alladina kuwa way ya'diluna cadaalada sameeyay fi hukmihim xukunkooda cadaalad ku sameeyay ya xukunku muxuu yahay dadka markaad kala xukumayso مثلا وحاتهاي تشاتش باتهاي قاضي باتهاي وحاتهاي مثلا قرصورة تهاي وحاتهاي قضي باتهاي مثلا ضدك مركي كوكن سناد وضد لو روح كلا ساريسو وإناد عدالة سميس يعدلون في حكمهم يا لبردان يرو دي بيسو جيستي بعد كلا ساريسا صوم وإناد متك قردرن هذا قردرت هو يحن علشان صاحبك هو يشاهد ولا عبتان صوم واستقانان قراباتهم ولالك ما يهوقوا أحد يعدلون في حكمهم مارتا وأهليهم أهل كود لحظة عدالة بيسمية أهل كود وحلقة وضع بمعنى قريقة يريرك يحاسسك يعرورك يكوى لحظة عدالة بيسمية ومك الإحدان ومك الإحدان عدالة بيسمية انت كليم يا يوما ولو يوحي مدح لوغا دغينا عدالت بي كسميه وما ولو ولايده مid yar iyo mid weyn boo ay noqotaa madaxa ugu sareeyo madaxweynaha waa wilaayo waa wixiis hoos u soo deg midka bakhaarka loo dhiibay bakhaar baa lagu yiri ilaali furihiisa haysa soo bakhaarka aduu madax kamid ya waa wilaayo waa marka ama tuulo madax ka noqo ama chief noqo ya ama muxuu ahay wasiir noqo madaxweyne noqo wama wullu wixii madax looga dhigayna cadaalad bay ku sameeyaan oo bimaana way ilaaliyaan cadaalada ilaaliyaan dadkaasi ila agtiisa darajo sare ku leeyihiin waa الحديث الثالث حديث كالسدحات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر وحا لغا ورين ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خطب الناس ضدكي وخطبيي يوم فتح مكة فرشديده مالنتي ومكة فرت مالنتي مكة قبصدي oo gaalada kala wareegay ilan gaala haysatay Soomaa nabi waxay ku dhashay sallallahu alayhi wasallam ya Makku ka dhashay laakiin Makka gaaladii baa ka eriday يا حجيبو هذه مركا مدينة طيب مدينة مركو تشوغي أو مدينة هذه بكجد بتجن وإلا دجالمين دجال كيسو سعودي مركي دم بوالجات كذا قال دي النبي يقول مكو صور ربي مكو يمد مكو ديبو قبصة سنة كي سنة كي استداد هجري
marka maalinkii uu Makka qabsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dadka u khudbeeyay hadal buu u jeediyay macnaha muxuu yiri faqala wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nas tadaw ya ayyuhan nas tadaw inna allaha alle qad adhaba wa taksiyay ankum haqqina wuxuu ka taksiyay alla wuxuu idin ka qaado idin dhaafiyay ama idin ka taksiyay ubbiyatal jahiliyya ya jahiliyada kibirkeedii jahiliyada maxaa la dhahaa islaamka koor ama wixii islaamka khilaafsan bay jahiliyo marka jahiliyada ubiyadana waa kibirka yani jahiliyada kibirkeedii dadku markayna diin haysanin kibir iyo isla weyna baa ku jira Soomaa taa ilaahay waa idin ka tagsiyay waa idin ka qaaday tayib wa ta'azumaha waxa kale ilaahay idin ka qaaday wa ta'azumaha jahiliyada isweynaysiinteedii bi aabaa'iha aabayaashada isku weynaysiin jirtay ya islaamka ka hor iyo mujtamacaadka aan islaamka ku dhaqminba waxay isku weynaysiiyeen ruuxu qiimo ku raadsada aabayaashii awowiyadii Soomaa in hebel baan ahay ree hebel baan ahay dadka waan ka fiicnaa qabiil hebel baan ka dhashay dadka waan ka fiicnaa oo maxaa kaga fiicanta waa dhaqankii jahiliyada Soomaa wa ta'azumaha iyo jahiliyada isweynaysiinteeda bi aabaa'iha aabayaasheeda isku weynaysiin jirtay ya oo isku qaadi jirtay oo wax ku isku moodi jirtay taa ilaahay waa idin ka qaaday waa idin dhaafiyay tayib fannaasu dadku marka fannaasu dadku rajulayn waa laba nin waa laba ruux waa wax u dhaxeeya male dadku dhan labadaas ay u qaybsamayaan ka koobaadi waxa weeyaan barrun ruux baari ah oo ilaahay baari u ah taqiyun oo ilaahay ka baqa kariimun oo qiimo iyo sharaf leh ala allah alla korkiisa ya alla agtiisana iyo korkiisana sharaf iyo qiimo ku leh kalabaadna wa faajirun weeninka labaad ama ruuxa labaad mid faajir ah oo xun shaqiyun oo ahlu naar ah hayyinun oo liita ala allah ilaahay korkiisa ku liita qiimo aan ilaahay agtiisa ku lahayn dadku waa labadaas yani labada way nin ruux qiimo leh oo sharaf leh muxuu qiimo ku yeeshay ya ma aaba iyo reebel baan ka dhashay iyo aabahay baa fiicnaan jiray iyo awogay baa sheekh ahaa iyo madax baan ka soo jeedaa iyo maya wuxuu sharaf ku yeeshay waa barrun taqiyun Soomaa ilaahay buu baari u yahay amarkiisu qaataa ilaahay buu ka baqaa kaas ilaahay agtii sharaf buu ku leeyahay alla ka cabsigaas iyo baarinimada ilaahay uu baariga u yahay ayuu qiimo iyo sharaf ku leeyahay alla agtiisa ka labaadna waa faajir waa mid dambiila ruuxa dambiga badan baa faajirka oo shaqi ah shaqigu waa ruuxa nasiibka xun waa oo ahlu naarka nasiib xun oo ahlu naar hayyinun ala allah ilaahi agtiisana aan qiimo ku lahayn liita xukumka ilaahi alla agtiisa wax qiimo ku muula ilaahu dadka dhexdiisa magac ku lahaado waa madaxweyne waa wasiir waa muxuu sheekh waa aqoonyahan laakiin waa faajir shaqi marba haduu sidaas yahay wasiirnimadu waxba u qaban mayso reer fiican baan ka soo jeedaa waxba ku qaban mayso Soomaa hayyin ala allah baata ila agtiisa qiimo mali tayib labada way dadku wannaasu dadku banu aadam dadka oo dhan waa aadam caruurtiisa waay hal aaba wada dhalay aadam la yiraahdo kaasi ka soo wada jeedaan tayib wa khalaqa allah allahu aburay aadam wuxuu ka abuuray min turabin arruka abuuray tayib kulligeen hal aabaan leenahay Soomaa waxa halka laga fahmay ya asalka laga soo jeedo laguma kala sharaf badna ay dadku isku wada asal waa adeer aadam baan ka wada nimid aadamna carra laga abuuray Soomaa saas daraadeed abtir iyo ree hebel iyo qabiil hebel
iyo aabbe hebel iyo awow hebel dadka kagama sharaf badnin dad kaga fiicnaan maysa طيب الله قال الله تعالى الله وحوي وحو كان marka aayad macnaha faa'iideynaysa الله وحوي يا أيها الناس ضدوا إنا أنغو خلقناكم واندن أبورني من ذكر وحاندن كأبورني لب ننوى وعلا وأنثى يددك وهوين ساسو معنا ذكرك وحكستو نين على لها وفي الصومالي كانوا محلو لها لب لها نين ما ندهنو يا نينك وحال ده رجل صوما لكن ذكر محل ده لبك وحال هذا waxay noqon kara xoolaha uu yeelan kara lab soo geeduhu lab bay leeyahay sooma marka dhakar waa lab unsaana waa wixii dhadigo dhan ama bini aadan ha noqdo ama ha noqdo muxuu ahay makhluuqaad kale ha noqdo إنا أنغو خلقناكم واندن أبورنا من ذكر بأنك أبورنا لب أوكي لب كلينك أبورك يا آدم طيب وأنثى يددك يا حاو هو يدن وجعلناكم محاندين كردقنا مركا كذب آدم يا حاو مركا عرورتي دالين عرورتو دي با ترانتي سوما way bateen caruuray sii dhaleen kadibna iyagii baa sii kala baxay labada walaalaha caruurtay sii kala dhalan hadana caruurga sii dhalayaan way kala baxayaan Soomaa marka qabiilooyin iyo qaranno iyo nidaamyo kala noqona waa dadkii wada dhashay waja'alnaakum waxaan idinka yeelay shucuuban shacabku waa dad far badan oo kala duwan oo wada nool iyo qabaa'ila iyo qabiilooyin baan idinka dhignay maxaa qabiilooyin iyo shacabyaal idinka dhigay يا مينا سوفانتان مايا لتعارفوا إن اسكو غرتان باليدين كدغ إن اسكو غرتان oo la yiraahdo kama ujeedaha waa Soomaali waa shacabkii Soomaali uu ka siiyay ya war Soomaaliya ka tii ya reebel buugay Soomaa hawiyu ka yahay daarood buu ka yahay ساقبو كي هيسوما ساسوي لتعارفوا عيب ماها باشن محوها قبيلك عيب وحو يهي مركا الظلم يقردر الله يسوه يليني اما وحلوه خربه لكن مركا كلوالوه ابتر صدا صوما يعني وحويان صومالي بان هاي ريهبل بان هاي ريهبل بان كسي هاي وادد انتكاد واي مركا صوما ادد انتكاد واي وكاد كي لوغو غران لها واي لتعارفوا طيب إن أسقرتان درتد باليدين كدغي شعبيان يا قبيلوين إن أكرمكم كإذن كو كرامة بدن عند الله إله أكتيس إذن كو شرف بدننا أتقاكم ومدك إذن كو عبس بدن وفي الصدى وحال يلي بني آدم كالك الدوي مدب كود لك الدوي قبيلة دود لك الدوي ujeedadu waxa weeye inay ku kala sharaf badan yihiin meehe inay isku gartaan taas loogu talagalay laakiin sharaftu xagee ku jirtaa xagee lagu kala sharaf badan yahay ilaahay lagu kala qiimo badan yahay waxa weeyaan inna akramakum indallahi atqaakum waxa dadka kaga fiican tahay waa alla ka cabsiga waa diintaada akhlaaqdaada cibaadadaada taas dadka kaga sharaf badnaan laakiin dalasho kaga ma sharaf badnaan midabna kagama sharaf badin xoolo iyo kursina kagama sharaf badin aaba iyo awowna kagama sharaf badin halka shay dadka kaga sareyn karto waa atqaakum alla ka cabsiga diintaadii akhlaaqdaada inna allaha alimun wa midka ogaansho badan oo idin og waaye khabiirun oo xogaalka khabiirka labadoo macna isku macno yihiin alim iyo khabiir laakiin khabiirka ka sii xeel dheer khabiirun wa xogaal عليم مدكي أقوى أرميهن خبير هذنا جنت يصلك سيء وحكي قرصون مجرم طيب حديث كاسي مركب معاك فايدة سنة وحين كفايدة سنة وحا هذا ضد كان هيستا وريرها يا قبائل شيء وحا ليسوق فانا يا وحكي ربا وخرافات صوا
inay wax jira ahayn oo badaragto way isku baabi'iyeen sooma oo wadamadoodii dalkoodii ku kharibeen marka faa'iido male dadka waxa lagu kala saari miisaanka ku kala fiican yihiin waa alla ka cabsiga diinta iyo akhlaaqdiisa iyo ruuxa dhaqanka wanaagsan oo leeyahay taan baa dadka ka fiicanta sooma طيب أنا مرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر وحال لقوين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خطب الناس ذاتك بأخطبه يوم فتح مكة فرشد هذا مالنتي لفرطي يعني فرشد مكة مالنتي هذه النبي ذاتك أخطبه فقال وحلو يا أيها الناس ضدوا إن الله اللي قد أذهب واتكسيي عنكم حقين وإذين ديدي ومعنى عبية الجاهلية جاهلية كبر كذي وتعاظمها إسوينيسين تذي بآبائها آباياشدي أويدها إسكوينيسين جرتي تا إلهي وإذين ديدي وإذين كرعبوا فالناس ضدك الرجلان وأولى بالروح بر متك كوبات مت بارئة وأليه زبارئة تقي أو إلهي كبق وحي إلهي فريالة وحي أكربين إسكيل عليه كريم أو شرف يقيمة على الله ألا أكتيس شرف يقيمة كله ألا كركيس كاوامد ضدك قاروا أنت halkaasay mareen sharaf bayna leeyahay qolada labaad waxa way wafaajirun way kala labaad mid dambiila ah shaqiyun oo nasiib xun hayyinun oo aan qiimo lahayn ala allah alla korkiisa ku qiimo daran alla agtiisana wax qiimo aan lahayn way والناس ضدك بنو آدم عرورتيسا way وخلق الله أبوري آدم من تراب عرك أبوري طيب قال الله تعالى ألا وحر يا أيها الناس ضدوا إنا أنه خلقناكم والدين أبورني من ذكر مدلب أو آدم وأنثى يمد ضدك أو حواء هيا حق وغيرين كأبورني وجعلناكم وحاردين كدقنا شعوبا يا شعبيال شعب كي قبيلة كوي يا شعب كوي شعبيال بان إذن كدقنا وقبائل إيا قبيلوين لتعارفوا سئة سقرتان إن أكرمكم كإذنكو كرامة يا شرف كبدن عند الله إله أتكي سأتقاكم وكإذنكو عفس بدن إذنكو دين رون إن الله اللي عليم متكي أقوي خبير نحوه قال الحديث الرابع حديث كأفراد عن مالك بن الحويرث مركو حل الرباه فدي odayaashii iyo duqeydii iyo qabiil baabi'i idinka dhalinyaratihiin inaad waxa wasakhda ka xoroodaan bal dhalinyarada khaasatan aqoonta leh wax baratay wixii nooca ahaaye jaahiliyada ahaaye qashinka ah ee nabigu ku tilmaamay inay uuraysaba mabda laga ma dhigto sooba qabiyalad mabda laga ma dhigto wax qiimo ma leh طيب الحديث الرابع حديث كأفراد عن مالك بن الحويرث وحل قور قال وحيد أتيت النبي قانو إمد صلى الله عليه وسلم أتيت وان إمد النبي قانو إمد صلى الله عليه وسلم ونحن أنقع شبابة لليراء متقاربون أو اسكد دو متقاربون اسكد دو شبابة يا وجمع الشباب صما شبابه ودلنيرو annagoo dhalinyaro baa nabiga uu nimid mutaqaaribuun oo isku dhadhow dhankay isaga dhow xagga daada isaga dhowaa daadanadu ay isku dhadhowda oo aad u sii kala waaweyneen nabiga uu nimid sallallahu alayhi wasallam fa aqamna wa nagaano waan joognay cindahu aktiisa 20 yawman 20 maalmood wa laylatan iyo habeen marka nabiga uu nimid annagoo dhalinyaro ah 20 habeen iyo 20 maalmood baan la joognay oo agtiisa joognay fa qamna waan la joogno waan nagaanay indahu agtiisa aan ku nagaanay 20 yawman wa layla 20 habeen iyo maalmood wa kana wuxuu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuul allah wuxuu ahaa rahiiman midna xariis badan sida ilaahay quraanka ku tilmaamay ya soo nabiga ilaahay kuma tilmaamay quraanka ayade way ayadaas سورة ايه كجرته سورة توبة آخر كده معايا يا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم طبعا لبدي تلمامود القرآن كل شيء. طيب وكان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوها رحيما من حريص بدن رفيقا أو تريد بدن يا رفيقا على هذا يعني الروح ضدك أطرة الترتيبية أنكو أدتكين. طيب مركا أمدي سؤولنا حريص بدنا وأنا أتريد بدنا صلى الله عليه وسلم. طيب فلما ظن مركو ملي نبيكو أنه قد اشتهينا إن شعلاني أهلنا غير كنجي أو قد اشتقنا إن أهلوني واسكو معنا ويبعنا قد اشتقنا إن شعلاني أهلوني أهل كنجي مركو النبي وقعد يسأل مركو ملي أيو سألنا وحنا ويدي عمن تركنا عدة أنك صوتنا بعدنا كذا شنط مركو النبي يقول لك شوقين لباتن كهبين يا مالمود أيو النبي صلى الله عليه وسلم وحو وقعدي ونحريس بدنا وأنا تريد بدنا وحو رجع على يرضى مدة ماشي شوقي إني أهل كودي ضد كودي يقربوا ضدي كل أبتانين يشعلي مركز النبي قويتي صلى الله عليه وسلم. طيب فلما ظن مركب مليي أنا قد اشتهينا إن شعلاني أهلنا أهل كنجي إن شعلاني أو قد اشتقنا إن أهلوني إن يعني ربنا إن غيرها نجي تجنو مركو نبي مليي أرجع أيو سألنا وحونا ويدي عمن تركنا عدة أنك قصو تجني بعدنا قداشا يا قداشا محل قودا ميشان كنمي يا تذكن كقصو تجني بنور صدق فأخبرناه مركزان ورني مدوحي الهوي أبان كيمد مدوحي الهوي أن كيمد محي القرابة هذا الرأي أن لتشو كيمد يعني وحي نول بدتك كيمد القرابة دي سهب وكور. فأخبرناه وأورنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مركز وحي ارجعوا نقضى إلى أهليكم أهل كيني ونقض تتكيني قرابة ديني كلابت. طيب فأقيموا نجادة أو تشوجة فيهم لحظة أهل كيني قرابة ديني كل نقضى مركز كل نقطان لح تشوجة. طيب وعلموهم برا محابرنا ساينس مال برا معي بريان وحي النبي جاي كبرتين صما حسابي ساينس لما برا وعلموهم برا وحي أذاني جاي كبرتين الدين دتكينا برا ومروهم أمرا وحاد أمرتان خير كأمر ها صلاة صومك وحي خيرنا دتكينا أمرا قرابدينا أمر سمايا له. وذكر وحو الشيغي أشياء وحيابو الشيغي وأحفظها عن حفظ سنة أو لا أحفظها أمان حفظ سنين. يا سار رحي ننكي حديثك كوريني صحابي يا وركي وحقا قار يرك الحلمة بحولي مركا وحوش الشيغي وحيابا عن قارنا حفظ سنة قارنا أنا حفظ سنين. طيب وحكم إذا وحو نبي أمر صلى الله عليه وسلم وحو كير نواكا دلين يرضى وصلوا كذا كما رأيتموني سيدا ذو أركتين وكله وصلي أنا أوتكني مركز حاجة تكتان ورجلين أوتكتانا سيدا ذو أركتين مركز دليل شوكتين سمي أركين أن تكنه سان أوتكنه صلاة أوتكنه حاجة مركز تكتان. فإذا قرتي حضرت أيتماد الصلاة صلاة مركز صح حاضرته واختجاده قالوا فليؤذنها آدمه لكم إذنك أحدكم متكين هيدين آدم متكين ها آدم وليأمكم ها إذن تجيو إمام ها إذن نقضى أكبركم متك إذن كوي يا كإذن كد أوينا إمام كدت صلاة مركز كشان إذن كمدها آدم حديث كاس فإذن يا معنى بدن بلغ قادني النبي صلى الله عليه وسلم يسيد ومدي سوغور هي dhalinyaradaasi 20 bari bay nabiga la joogeen 20 habeen sallallahu alayhi wasallam kadib nabiga uu diray sallallahu alayhi wasallam markuu dirayna shaqo adag uu sidii shaqo aad muhiim ah oo maxay ah inay dadkoodii diinta ugu yeedhaan ilaan dadkay ka yimaadeen gaalay ahaayeen soo dad muslimiin ka yimaad dadkiini ku laabta marka tagtaan kadibna diinta gaarsiiyo yaani diinta bara khayrkan amra leeyahay يا ماشي waxaan ka qaadanayna marka ya dhalinyarana muxuu ahay dacwada iyo dadka in khayr loo sheego dhalinyarana ahay
يا عذر دار ما صوما هذا dhalinyarta khair ka sheeg wanaag ka sheeg dadka ehelkaaga ugu yaraan hadda wax kale kari weeydo guriga maartay ciyalka ka yar yar iyo foodleyda iyo kuwa yar ka maartay kuwaas khair ka far wax weyn ma ilaa guriga ku laabtaa leeyahay sooma guriga ku laabto hooyada hadayna salaada tukan hooyada salaada tukada khair Allah ku sii sooma walaasha hadayna tukanin walaalka haduu tukanin marka يعني وحوي dhalinyarada khayrkaas la diray message ka qaada salada qaada dadka gaarsiiyo nabi sallallahu alayhi wasallam waxa kale uu ku yiri tukada marka tukanaysana salaadaydii oo kale tukada meeshana maxaan ka qaadanaynaa salaadaadu haday noqoto mid khilaafsan tii nabiga sallallahu alayhi wasallam ya laga yeeli maayo soo xadiidkii Aisha ma ahayn ya xadiidkii Aisha muxuu من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صلاة النبي محمد سيده تكن جري غورما تكن كرتا markaad barato sooma hadaadan baranin ba sidoo tukan jiray ma keeni kartid mana tukan kartid taas daraadeed salaada barashadeeda iyo cibaadaadka oo dhan waa laga maarmaan sallu kama ra'aytumuni usalli waxa kale nabigu amray sallallahu alayhi wasallam waqtigeedu markuu soo galo mid idinka mid ah idin aadaamo waxaan halka ka qaadanay salaada marka loo aadaamayo masaajid shardi ma hadaad meel cidla joogto kaliya tukanayso aadaan kadibna salaada aqim hadaad koox yartiin sidoo kale aadaanku meel kasta iyo waqti kasta waa la aadaama salaadu marada waajibta waa loo aadaama waqtigeedu markuu galo kadibna waa loo aqima aadaan iyo aqim طيب وحيري مالك بن الحويرث أتيت وحنو من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الشباب أنقر لنيران النبي صلى الله عليه وسلم متقاربون وإسكود دو ده حق هذا يسجدوا فأقمنا ونجان عنده النبي أكتيس 20 يوما وليلة لباتنها بين يوم الموت وكان وحوه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما من حريص بدن رفيقا أو تريد بدن مدي سوترة فلما ظن مركم ملي النبي أن أنه قد اشتهينا إن شعلاني أهلنا أهل كني قرابة النذين كلها أو قد اشتقنا إن أهلوني ويسكو معنوي أو يسكو دويين أيا سألنا وحو نويدي النبي صلى الله عليه وسلم عمن تركنا عدة أن كقصو تجني بعدنا كذاش النذ dadka aan gadaashanadii meeshan ka nimid kaga nimid oo kaga soo tagnay ayuu nabigu naweydiyay sallallahu alayhi wasallam tayib qala markaas fa akhbarnaahu markaasaan u warannay dadkan ka soo tagnay baan u sheegnay qala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam irji'u noqda ila ahlikum ehelkiini qaraabadiini dadkiini ku laabta oo fa aqiimu nagaada ama jooga fiihim dhaxdooda jooga halka deganaada wa'allimuhum bara دين تبرع ومروهم أمرا وحي خيرنا أمرا طيب وذكر وحو الشيء أشياء وحيابا أحفظها عن حفظ سنة أو لا أحفظها أمان حفظ سنين يعني وحو الشيء صحابيه وركلوا شيء عن حفظ سنة أمان حفظ سنين وعليه كرتمه هو معنا طيب وحكوا حديث النبي قوها أنت موجودا وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها لبا حريق بيقول حيسا صوما سيدا ما يدينكو قرد لبا حريق بيقول حيسا وحي تلماميسا إنيسان هذا الحديث كميدة هين صوما وهذا الدحدة صوق عليه نينكي حديث كورنا يبقى هلكا صوق ليه سيو أشياغو إنو وحيابها قاركو سيدي اللي ربي أوصن أقابنين لكن حديث كي النبي قو سيدا يسور عسين يا سيسوق حرين هاي سيسوق حرين ومروهم وحكوا حكته وصلوا كما رأيتمني أصلي سيسوق حرين لكن هذا كان راوي قاعد يحدث سوق لي طيب وصلوا تكذا كما رأيتموني سادي يقول أركتين وكلا أصلي أنا وتكني فإذا كورتي حضرت الصلاة مركيت ما دو وقت جاد الصوق قالوا وصاح حاضرته فليؤذنها آدم لكم إذنك أحدكم يتكينها إذن آدم ولي أمكم هيدن تجي أكبركم متك إذن كوي محلو يدي متك إذن كوي يا الصلاة يا إمام النقطة روح القرآن كوي قانا إمام النقطة صبا أما القرآن كوي بديا
يا محمد كتن لو يري كيدين ku daaweyn yaga jawaabi kara ايوه maadaama ay isku waqti u yimaadeen muddo kooban oo isku midan ay la joogeen cilmiga ay qaateen baa isku dhadhawaa ama isku mid ah marka xagga quraanka iyo cilmiga iyo kumayna kala badnayn taa hadii lagu sinaado marka waxa loo gudbayaa ruuxa daada weyn baa imaanaya marka sabab ruuxa daada weyn baa marka tujinay hadii quraanka iyo cilmiga lagu simay طيب الحديث الخامس حديث كشنات طيب عن أنس وحا لغا ورينيا قال وحو جاء وحا يمين 3 رهط كوح صدحة أي وحي مادين إلى بيوت أزواج النبي نبي حاسس كيس قريه دي بيمادين صلى الله عليه وسلم وفي رصدة يعني عربي جاي الصومالي وحيالي بكل دوين حكمي ده عربيga marka la fasirayo sidoo kale isu raacsan mudaaf iyo mudaaf ilayhi yalna gadaal baa Soomaaliga loo fasira marka isku qabato tiraado ila buyuti azwaaj an-nabi Soomaaliga xageed ka bilaab ya meesha ugu dambeeya ka bilow nabiga ay xaasaskiisa ay guryahood laakiin hadad hore ka soo bilowdo maxay noqon guryaha xaasaska nabiga waxa isma qabanayso marka luqadaha saakala طيب جاء وحي من 3 رهط كوح صدح ايا الى بيوت ازواج النبي نبي حاسسكيسا غريهودا نبي حاسسكيسا غريهودا يمادين يعني نبي سو حاسس بدل ما قبل غريهي حاسسكي نبي غريهي دغنايين باي رك كوخودا سودا غريهي سو مري طيب maxay rabaan oo raadinayaan oo guriyaha nabiga u soo maraya waak yasaluunahu iyagoo weydiinaya an ibadati nabiga ibadatiisa sallallahu alayhi wasallam dumarkay nabiga waxay warsanayaan sidee nabigu habeenkii u ibaadeystaa see u tukada habeenkii intee soo jeeda ilaan dumarka nabiga guriyihii nabigu inta badan guriyuhu salaatu leelkii ku tukan jiray dumarkiisuna cilmi badan bay hayeen oo dadka kale aynan haynin ila way la noolaayeen Soomaa marka intay tagaan bay soo weydiiyeen warba nooga warba nabigu see u cibaadeysta falamma ukhbiru markii loo sheegay sidii nabiga cibaadadiisii ay raadinayeen markii loo warramo dumarku uga warrameen kaannahum wa iyago taqalluha ya yaraystay taqalluha iyagoo yaraystay oo kala waa yaani way la yaraatay way saluugeen Soomaaliga taas way saluugeen marka inta xabitaan lagu siiyo ama cunto lagu siiyo adu xogaa kula yaraato oo istira wallahi tan ku deeqimayso Soomaaliga maxaa la dhahaa ya saluugid baa la dhahaa war iimaanka laga qaadiyaa saluugina xun baa lagu dhigay marka oo taas marka kaannahum wa ayago taqalluha yaraystay oo cibaadadii nabigu la yaraatay sallallahu alayhi wasallam faqaalu markaas waxay yiraahdeen ayna hageeban nahnu anagu ahaanay min nabiga xaqi sallallahu alayhi wasallam waranaga nabiga xaqeen ka joognaa haloo sheegay habeenkii intaas uu kacaa intaana waa seexdaa intaas uu tukada saas uu Soomaa way sheegeen markaas waxay yiraahdeen oo anaga nabiga xaqeen kala joognaa bay ya nabiga dambigiisii hore kii damba ilaahay waa dhaaf أين حجيبا نحن أنغو من النبي كأهان صلى الله عليه وسلم قد غفر الله أوضع في النبي له إستغى وحوضع في ما تقدم وحي هرمري ومن ذنبه جيساء إيا وما تأخر إيا وحي دب مريبا يعني وحي ذنبه هري إيا وحي ذنبه ييبا نبي إلهي وأوضع ورنكم يا لينو ذنب داف يا ميانا إسانا إن لينو ذنب داف ما لكن نبي إلهي بقول شيء إن دمبيجي سيهودي كيسي كوري كيدا بقول الله حاجة لو شيء قرآن كا سورة الفتح بقول شيء طيب نبغى مركب حيث كذا عندنا يا وحيله النبي عبادة اسمه كذا إن لا يراتي وحو عبادة سنة يا متقنا وهو بدين لا
إذا سجوا لو دمنا إنكم يلا ينو دمنا فما يا دوين أنك بدد النمر إنكم إن سيادة كم هاي الدم بيجينا بدل عادي إنه أنا يبدد نبي يسوى الله ناف وركها فلسفة ده زي نمك أسكت عليه طيب قال وحول أحدهم يتكود بركة حلق قال مركة إنه نول با وحبط بديه وعبادة بدن وتي نبي مسليه كبدي سيدم بيجا الله دافع لأن هذه الأمة دم دافعنا ينول برادين يا مركة قال أحدهم يتكود وحول أما أنا أنيقو فإني أنيقو أصلي وأنت كان الليل هبينك أردن أبدا ولقي مدوحي لأنه هبين أردن مساحن معي سؤال ما دهن نبي هبينك قارن واساحن شري قارن وسوتشيت شري وتكن شري صوما مدوحي لأنك هبين أردن بوابن تكن قيب كم إذا مساحن معي هاي فريدة وقال آخر ككلام وحوي أنا أنقول أصوم وانسومي الدهر الزمن كردون وانسومي ولي جيب أفر معي ولا أفطر ما بأفر يوم دهر كوحلي هذا زمن كردون وانسومي سنده كردون ولا أفطر ما أفره مال نردن وانسومنا نيا أسوون محمود ماشى كدولي وحلوه المركي صنك النبي يويدين نبي يقول مال منا وانسوم مالنا واسك أفره هو لود مدافع أنا كمال نودا واسومي طيب وقال آخر متك الوحيد أنا أعتزل وحنكف جانيا النساء ضمرك وفلا أتزوج كورسا ما أبدا ولدي كور إيو إسلام إيو عرور إيو وبكذب عبادتي بيجا مشغولين هاي ساس ترى ده أنا واسكا هذا ما برا عبادة أساس كجلا مساج كي ياسي اسك عبادة سنة ما برا ضمر إيو كور يا عرور طيب فجاء وحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم به سو نبا ميل كما دع او نبا ميل مسكما قادم فجاء وحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم به يمد فقال وركب النبي قال صلى الله عليه وسلم قال وحول انتم يدنكم الذين كوي مياتين قلتم يجري كذا وكذا سدا يا سدا ورنمكي سدا يا سدا laga sheegay yiri soo idinka ma antum idinku الذين كوي مياتين قلتم يجري كذا وكذا سدا يا سدا ما laga wada ha warkii hadda la soo sheegay baa la soo gaabiyay sida nimankii soo idinka ma ama kelimadaasi waa baraarujin ala oo kale u dhiganta ama hooy ama soo jeesada dhageysta ama hooy wallahi ilaahi baan ku dhaartay إني أنقول أخشاكم متك إذنكو عبس بدبانه لله إلهي وأتقاكم متك السك يعني إذنكو عبس بدبانه هاي له الله خشية التقوى مركي كل ما هو حلقة وذا التقوى وإسئلال أنت إناد إسك إلالي سوء وحي لغار ريبي طيب marka xagga khashiyada alla ka cabsiga iyo is-ilaalintaba ana idin ku sita ima gaari kartaan meesha muxuu nabi ku buriyay ya hadalkii ahaa war nabiga waa loo dambi dhaafay inaga leeynooma dambi dhaafay sidaas daradeed cibaadadan yar wuxuu u sameeynaya de waa loo dambi dhaafay tiiba meesha laga saaray wuxuu yiri war si kasta dad sameeysan aniga alla ka cabsiga iyo is-ilaalinteeda ima gaari kartaan sooma ومع ذلك أنيقو إذن كجهر يطاع إذا نجاري كرين هذانا لكني أصوم وانسومي من الرسول صلى الله عليه وسلم لكني أنقصي أصوم وانسومي معلمها قاركود وأفطر وأن أفطر معلمها قاركود وأصلي وأن تكن هبينك قاركي وأرقد هبينك قارك مدن وانصيحا وأتزوج وأن جورسني النساء الدمر كانوا وأن جورسن وحرور باندالي فمن رغب مرك الروح النعى عن سنتي طريقة إذا الروح النعى فليس مني إلى مدمة يا رغب فمن رغب ده كلمة الرغب اللي لا هو عربي صوما حدي في أي كدم بيسوى تعيل يدونيتان حدي عن كدم بيزنا والنعيتان يا وهالكلمة هو حرف كدم بيه كل بمعنيه سقاطني رغب عني أمن عنه وأنا عيوة
raqiba fiihina wuu rabaa wuu jeclaada saas macna طيب xadiiskaasi marka asaguna wuxuu inoo faa'iideynayaa maxay wuxuu inoo faa'iideynayaa inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu daydo oo aan xuduudii iyo sohdintii la dhaafin wixii uu sameeyay baa khayrku ku jira jidkiisii in la maro inaan laga badbadinin oo la buunbuuninin lagana soko dhicin intii meeshii uu wax dhigay in la dhigo lagu ekaado halkaas khayrku ku jira alla ka cabsiguna halkaas ku jira laakiin haday ku gasho siyaada la imow siyaada la imow war bidcada joojina tiraa war bidca ma khayr baan badinahay war khayr ma badinaysid balaayad badinaysid laana wixii nabiga jidkiisii khilaafsan waa balaayo sooma salaad badan oo antii nabiga waafaqsanayn laba rabo xaj badan iyo wax umra ku magacaaban oo khilaafsantii nabiga sallallahu alayhi wasallam socon mayso sooma tartiib adduunka sidoo nabigu u dhaqmi jiray u dhaqan sallallahu alayhi wasallam cibaadadiisii habeenkiis soonkiisii xajkiisii qaabku u cibaadaysan jiray intaad barato ku ekow yuusa shaydaanku kuugu sheekaynin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hada waa loo dami dhaafay anaga dambi baan leenahay shaqo inaan ka badbadino waa meelaha uu shaydaanku dadka soo galay markuu doonayo inuu bidca ku rido طيب الحديث السادس حديثك لحاد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري يا معشر الشباب دلن يروي يا معشر الشباب دلن يرد كلن كيداي دلن يرد كلن سنه بمعنى معشر كوا وكلن ايمان طيب يا معشر الشباب كلن كدلن يرد دلن يرد كلن سنه من استطاع عدي أوده ومنكم إذن كمدا الباءة خرشك جورك خرشكيس روحي أوده فليتزوجها جورسدو فإنه إسقو كاس جورك أيا أغض الله بدن للبصر أرجع إيش هذا إن اللابتو وآد كلابتو محي حارانتا كلابتو iyo daawashada xaraanta waxa kugu kaalmeynaya guurka طيب واحسن guurka ayaa ila shima badan lil farji xubinka tarankana oo ila shima badan ina zina iyo qashin ku dhacdo wasakhowdana waxa ku ilaalinaya guurka ku ilaalinaya Soomaaliya marka laana ruux markuu reer leeyahay islaamtu nin leedahay ama ninka dhalinyarada xaas leeyahay ama gabadhu ay nin leedahay خلاص waa dhowrsoontahay Soomaa baahi u geysay inuu wasaqoobo zina galo oo qashin galo ama ishiisu inay muxuu ahay xariga goosato oo meelaha intuu maro dadka iska daawado iyo dumar uma baahna laana waa dhareegsan yahay Soomaa hadda dhareegsantahay cuntaad fiirini meelaha daldaaliya biyo laakiin haddaad gaajaysantahay wixii ku soo hormaraba adeer waxa weeye indhaha la kala daba geli Soomaa waad gaajaysantahay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay yaani guursada dhalinyaro hadaad guurka kari kartaan oo kharashkiisa awoodiisa leeyahay wama lam yastadih ruuxi aan kari qarashkii iyo hawlihi ma hayo oo guri ku dhisi laha islaanta kuma suruufi laha hawlahaasi ma yaalaan fa alayhi waxa korkiisa bisawmi soom marka hal laazim ha soomo maxay yeelay fa innahu sanku lahu isaga wuxuu yahay fa innahu sanku lahu isaga xaal uu sugnaaday wijaa'un wijaa'un wa dufan wijaaga mataqana wijaaga waxa la yiraahdaa xoolaha yaa loo isticmaalaa marka la rabo inay hilib yeeshaan oo cayilaan xiniyaha laga bixiyaa ama xiniyaha la tuma waa la burburiyaa marka xiniyaha la burburiyo raganimadii baa ka tagaysa kadibna uu iska daaqi oo cayili Soomaa marka kaasa la yiraahdaa wijaa maxaa laga wadaa bimaana soonka aad soomayso raganimadaadii buu dilayaa
kulaylkii ku hayay buu ka dejinay warka murdiintaas waa sababtu maxay tahay waxa keenaya shahwada iyo kulaylkan waa cuntada iyo cabitaanka iyo nafaqada ruuxu markuu nafaqo waayo oo iska barrafaadsan yahay kan shaw ma hayo wax raadin maayo sababa laakiin markuu cuno oo aad u cabo oo dhergo oo durbo shahwa qabanaysa marka si shahwadaada u jabto oo sidii neef dhufaanan oo kala aad u noqoto adeer soonka badsa way hadaad wax weey tayib waa daawo dhinac waa khayr oo ajir baa lagaaga qorayaa dhinaca labaadna wax weeyaan uu ku ilaalinayaa wuxuu ka ilaalinayaa wasakhdii iyo qashinkii iyo zinadii waxaasuu ka ilaalinaya ilaa aad guur ka hesho يا معشر الشباب دلنيروي من استطاع الروح كراء منكم إذن كإذن كمذا الباءة خرج كيو يعني وحويان خرج كجور كوان فليتزوجها جور سدو فإنه جور كاس أغض مد لابد بدن وللبصر أرجع وأحسن مد إلى لين بدن وللفرج حبين كترن كان إلى لين بدن ومن لم يستطع روحي أنكري كرين وباء يخرج كان هلي كرين فعليه كرجي سواء هذا بالصوم يعني صوم باكوركيسا يعني صون هل لازمه فإنه يسوي صونكي له حال يسوي أصقنا هذا ويجاء وردفان هي شهوة جوين شهوة ذو كاتر يا ول أما كضعيفنا يا كاقبنا يا شركة يديب كذا معنا طيب ماشي أنا محن كفهني هدي بعد أقول له هاي قرصو وأنا كويل علينا يا ومد النبي كان وقت بدينيس صباح طيب عن الحديث السابع حديث كتضباط عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وحلقوا قالت وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعوري خيركم روح إذنكو خير بدني وخيركم كأجو خير كإذنكو خير بدن لأهل أهل الكيس كإذنكو وناكسن إذنكو خير بدن والروح أجو وناكسن أجو خير بدن أهل الكيس يعني غير كيسة يعرور تيسة أي أهل كلاجوده روح أهل كيسي عرور تيسي حاسس كيسي أرن إذن كفي عن أقول رقم في عن با إذن كو خير بدن معنا طيب وأنا أقول هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم كإذن كو خير بدن باناي لأهلي أهل كيجا أهل يحاسس لا معاملة أنا إذن كفي عن ساس درادي أنا إذن كو خير بدن ماشي أنا وحنا كفهني روحي غير لي حاسلو غوري له انو غوريgiisa ka dadaalo oo dhaqan fiican kula dhaqmo akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo xuquuqdooda ilaaliyo halka muxuu ka helayaa kaliya adduunyo iyo islaantii oo ku fiicnaata ama wadaadkii oo u fiicnaada kaliya ma aha xagga allana waxaad galaysaa akhyaartaad galaysaa ya hadis laakiin aad noqoto wuxuu ahay jirac duulaan oo isku dhagaxayo markuu yani wax weeyaan ama reerka arko ama oo gacantu ka soo horeyso arabkiisa ay aflagaada ka daadanayso guriga markuu soo galo emergency waa sagadhan guriga dhanba emergency ku soo rogay ya ma dhaqan wanaagsan ma ragga qaar kood baa wanaag mooda ama dumarka qaar baa wanaag mooda laakiin wanaag ma ilaa agtiisa khiyaarnimadu waxay ku jirtaa in guriga iyo reerka uu ruux akhyaar noqdo hadduu dumar yahay iyo hadduu rag yahay naam الحديث الثامن حديث كالسديدات عن أبي سعيد الخدري أبي سعيد وحلقه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري أكمل المؤمنين مؤمنين تمتك أقول ما يسترنام بدن إيمانا حق إيمانك أحسنهم ومتك أقواناك بدن خلقا حق أخلاق إيمانك ضدك صومك لا سري مؤمنين تيجوا مؤمنين هذا إيمان كود وكلا في عين صومه وكلا سرية مدبا إيمان كيسو ضعيف ياهي مدبا إيمان كيسو لحد ياهي مدبا إيمان كيسو سرية يا مركب مؤمنين تمدك إيمان كيسو أقول لما يستريه وأقول سرية ومدك أقول أخلاق في عون دقن كيسة أف كيسة الدين كيسة نحريس كيسة صبر كيسة دق السينما ديسة دبع سنان تيسة وهكذا روح كأخلاق بدني وكإيمان في عين وأنا كإيمان سريع أكمل المؤمنين مؤمنين تمتك أقول ما يسترنام بدن إيمانا حق إيمانك أحسنهم متك أقونا بدن ويخلقا حق أخلاق الموطؤون هو لجبليوي أكنافا
حق دينعيده يا كوا دينعيدودو غوغلن يhiin موطأ وحل هذا وشيء لا غوغلي يا أكنافتنا كنف وحل هذا ودينعه maxaa laga wadaa waxa laga wadaa gogol wanaagsan markaad ku seexato dhinacaaga aad saarto ya kuma xaganayso soo kuma xanuujinayso ruuxa akhlaaqda wanaagsan la waa ruuxa dhinaciisu uusan xaganaynin oo xanuujinaynin dadka ya saaxiibada dadka kula nool ee gurigaaga mu'miniinta kale khalqiga kula nool ee dhinacyaha ka jira akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu waa inay sidii gogol oo kale u yihiin dhinacaagu waa inuu u goglan yahay sooma oo uusan xaganin oo uusan muxuna dhib u geysanin almuwatta'una kuwa la goglay way aknaafan dhinacyaha xagga dhinacyahooda ayaa goglano dadkay u goglay sidii gogol taalo oo يعني ناعمه في عن الله سبحانه يندك وحيلين وكلا ويمعنا طيب الذين كواسوا يألفون ضدك الظلمة ضدك الدوالة ويؤلفون أيجنا للسود ويصادرك ضدك ويؤدركان ويؤظلمان أيجنا والله الضماء ولا سود شيدا طيب حلقة وذا ضدك قارو حشرة معنجة سؤال معنجة بيرترا يا قري مقش كون سو جيد مايو حداد او جيدنتنا دبات kala kul sooma marka mana jiidmo loo mana jiidmo ka khayr mar ya laakiin waxa la rabaa ruux dabeecad macaan oo dadkuna u soo dunma isaguna dadka u soo dunmo u soo dhawaada asagana loo dhawaado la jeceli hadaad aragto ruux laga cararo oo dadku ka cararaan ya waa dadka ruuxa ugu shar badan waa sodod ma jiraan markuu soo baxay leeyahay warkii hebel soo socdina anaga mariya sooma wartii hebel soo fadhiisatay aamus hebel soo fadhiisatay waa sharley sooma sida loo joogo oo dadku fiican yihiin mid baa soo galaya waa kii hebel balaayo qaba ruux hadaad aragto marka laga cararayo sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa dadka ruuxa ugu shar badan yaa dadka u khayr badan waxa uu khayr badan ruuxa dabeecadda macaan oo dadkuna u soo dulmaan oo lagu soo ururo asaguna dadka u dulma saas ma macna ya alif alladina kuwaasoo ya'lifuna dulma dhawaada way macna dadka u dhawaada wayulafuna ayagana la dumo oo dadka yaani wax way markay dadku ay wax ka rabaan u soo dulmo u soo dhawaada oo aan macangag ahayn madaxda wala khayr ma lahan wala khayr ma ahanin fi man ruux dhaxdi la ya'lifu aan soo dhawaanin soo dulmaynin ولا يؤلف أن للدمين يألف على هذا السقم مدوا هذا يؤلفنا يا لمسوا دويوا يألف والضماء يؤلفنا ولا الضماء معنا ولا خير معها في من روح لحدي لا يألف أن السقم الدمين وندتك ودوانين ولا يؤلف أن لصود مكرين ولا صود وين كرين يا وخير لا ولا عرّه كخير ملو الحديث التاسع حديث كسجال ماشى محن كباني ضبيعة عداد يدقن كجواناش يا ضل تشعليه هالنقط روح تشعليه المؤمنين تشعليه النقط لأن ضد كمؤمنين تقول النور ومرخاتية إله يقول كتشوجيوه آخر مرك لا تجو ولا يراد وربك ورب هبر هذا يدتكو ويرهدان كان صوما خير لا وهذا بعد حن إلى أكتيس دبعت حن ودبعت حن هذا يدتكو أمانان ويرهدان والروح بالصوما والروح خيار وفي عنو دبعت معانو قعان فرانو أتكيس بدن وكانوا ودتكو تعليهن هذا يسال لجوج مرخاتك عنا إلى أكتي مرخاتك عساق لجوج قبنا صوما مركب على الروا إن دبعت الحاجاتيو هي حديث كلام كودم بيسين وانضحنا الحديث التاسع حديث كسجالات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري من رأى روحي أركع أو منكم إذن كمدا منكرا وحشرعات الديدي وحشرعات الديدي أو دينتو ديدي روحي أركع روح بقى السميني روح بقى كوها الله
munkar baad aragtay sharcadu diiday oo la sameeyay man ra'a ruuxi arka oo minkum idinka kamida munkaran wax sharcadu diido diintu diiday falyughayyirhu shayga habadalo biyadi gacantiisa ku badalo ya gacanta wax kaga qabo marka gacanta isticmaal waa goorma markaad gacanta isticmaalayso waa markaad awood leedahay dawlad baad tahay awood baad leedahay munkar baad aragtay munkarkaasi awood u isticmaal gacan wax kaga qabo xabsi iyo xarig iyo karbaash iyo waakada sooma ama gurigaagii way ninka gurigiisa iyo reerkiisa munkarkii xumaantaad aragto awood baad u leedahay sooma yalla gacan wax kaga qabo طيب فإن لم يستطيع حدوسا كريدين قعنتي inaad gacan ku badasho ma kari kartid waa ka awood badanta ama hadaad gacan qaadaba dib ka weyn baa ka dhalanay waxaad sameeyay marka fa bil lisaani arabkiisa ku badalo marka marka ka hadal aamusina waxaad tiraahdaa war wax iska daaye war zinada iska daayo war xatooyada iska daayo war dilka iska daaye war xanta iska daaye war diin la'aanta iska daayo war waxan hadal sooma فليغيره هبدله بلسان عرب كسب بلسان عرب كاكو بدل وهكذا الله يوصل امسي معنا طيب ومن لم يستطيع روحي كرواي عرب كنا حاولت كيابتي با هداد هدش اما waa lagu xidhay ama waa lagu diliba qab lafaaga u baqaysaaba khatar baabad galiba waxa sameeyay marka fa biqalbihi marka qalbigiisa ku bedelo marka منكر كان قبل قلبي ugu bedel oo qalbiga seen ugu bedeli waa kahane waa dibsane waa nici waa qalbigaaga ka guban Soomaarta xumaanta markaad aragto qalbigaagu waa xajiimoona waa dibsanaysa wadaalika kaas oo qalbiga inaad ku bedeshaa oo qalbigaagu diido ka xumaada adaful iimaan iimaanka ka ugu tabaryar waa ka ugu daciifsan way iimaan halka maxaan ka garanay munkarka iyo xumaanta shariicadu diiday in la bedelo waa iimaan dadka in diinta loogu yeero xumaanta laga reebo waa iimaan iimaankii baa kala xoog badan marka Soomaa gacanta marka waa tii ugu xoog badnay arabkuna waa martabadii ku xigtay meesha ugu tabaryar waa qalbiga hadii qalbigii laga waayo ka waran ما صهري وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان وإيمانه وكو مجرى مركا وقورمه مركا منكر كالله قفصت زندي حمانتي أخلاق حمدي شركي قال لمدي ديك دادنايا وحي وابدسكتش عشاء وادكو قص ليس مركا أركتاب مرقامي با وابدسكتش بومبا maxaa meesha laga fahmayaa iimaankii dibsan lahaa baa qalbigaaga ka maqan sooma wadaalika adaful iimaan qalbiga inaad ka kahato waa meesha ugu hooseysa inta hadii laga waayo bimaana munkarkii ama raalibaad ku tahay ama dibba kuguma hayo oo wax dibba kama qabtid markaasi waxa weeyaan iimaanba ma jiraba iimaanku waa inuu diido munkarka Soomaaliyeed oo macnaha ka hado oo dhibsado halkaas ugu tabariya man ra'a ruuxi arko minkum idinka kamida munkaran wax shariicadu diiday falyughayyirhu habadala bi yadihi gacantiisa fa in lam yastati' adu sakari karim fa bilisani arabkiisa ku bedel fa in lam yastati' wa man lam yastati' min qori mis fa in lam yastati' tadambe فإن لم يستطيع حدو كري واي هدنا فبقلبي قلبيسا هكو بدلو او قلبك marka ka kahdo wadaalika kaasina adaf al-iimaan iimaanka midka ugu tabar daran meesha iimaan ugu hooseys ka isaga weey marka iimaanku wuxuu noqdaa ficilkaad sameynayso waa iimaan qalbiga waxa ku jira waa iimaan arabku wuxuu ku hadlayana waa iimaan kulli iimaan bay noqon Soomaa iimaanku saddexdu way kala sida madhabka ahlus sunnah hada billahi tawfiiq صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه